laga tiray telefoonkan koowaad ayaan haystaa iyo midkan labaad. Marka waxaan rabaa tusaale yar inaan ka siiyo labadan telefoon oo qaabka u isticmaali lahaydeen appka oo hadda tusaalihiisa ugu fiican. Halkan ayaan hi ayaan ku qorayaa, ayaan ku qoray waan dirayaa. Ujeedaan dhinaca kale ay kasoo baxday hi-dii. Halkan telefoon kale ayaan kusoo laabanayaa, isla qoraalkii haddeer aan qoray ayaan delete gareynayaa. Waan deleteday. Ujeedaan delete for everyone ayaa leedahay. bas markay delete mato xaggan waxaa kusoo qormaysa this message was deleted. Marka oo message-ka waa laga delete gareey ma akhrin kartid. And then marka saas hadii tahay waxaan rabaa app ayaa jira ii fududeynaya waxaas oo dhan. Play Store-ka ayaan aadayaa. Play Store-ka markaan tago halkan magaciisa ayaan qoray app fudud waxaa lagu magacaabaa Noti Safe. Sida hadda meesha igu jirta wuu ii soo baxay. Install ayaan leeyahay. Yes, waan install gareynayaa. Wuu wadaa wax yar gudahood buu kusoo degayaa. Wuu soo degay. Waa kana uu soo baxay appkii. And then waxaan sameynayaa open ayaan leeyahay. Xogaa waan analyze gareynayaa bas allow ayaan leeyahay meeshaan ugu soo horeysa. Allow ayaan leeyahay. Wax saa u dhib badan ma tan inta kale waa iska fududahay oo fahmay. Next ayaan leedahay meeshaan. Meeshaan maxaa la jiray notification-kiisa ayaa maxaa la jiray enable ka dhigaysa oo number dhankaas dhinac kale u riixaysa. Allow ayaa leedahay. Saa u jeedaan ba hadda maxaa la jiray aad buu appkan uu shaqeeyay. Marka tusaale ayaan rabaa maadaama appkan soo dejin inaan tijaabiyo si adinkuna ugu qancadaan. Halkan ayaan qorayaa hi, how are you, and then waan dirayaa. Kligaysanayaa waa diray. Ujeedaan dhinaca kale ka soo baxday hi, how are you. Ujeedaan sooma. Marka waxaan sameynayaa dib aan u soo laabanayaa kana delete marka. Delete ayaan leeyahay for everyone. Waa delete gareeyay. Ujeedaan message was deleted laakiin meeshaan hoose ayay ku qoran tahay iyadii wixii la ii soo diray. Qofkaas hadalkiisii waan akhriyay marka. Ujeedaan sooma. Marka waa aad buu u fudud yahay. Waxaan rajeynayaa inaad fahanteen adinkana aad